halkan aad u jeedaan aan ku sugannahay waa garoonka Nugaal Stadium oo ku yaala koonfurta waqooyi ee degmada Ceelifeyn. garoonka Nugaal Stadium ayaa ah garoon martigeliya kulamo aad u tiro badan isla markaasna kulmiyo dhalinyaro tiro badan oo halkan ku ciyaara. haddaba dhalinyarada ku ciyaarta garoonka Nugaal Stadium ayaa cabasho weyn ka muujisay wasaaradda ciyaaraha Somaliland iyo sidoo kale bahda sportska degmada Ceelifeyn, waxayna cambaareen dusha kaga tureen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka sportska degmada Ceelifeyn, waxayna sheegeen inaanay wax baahiyo sportis aanay soo gaarsiin isla markaasna dhalinyaradani ay ka qata tahay baahiyo asaasiga ah ee wasaaradda ciyaaraha Somaliland iyo ka degmada Ceelifeyn. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh anoo ka mid ah balaayarinta ku ciyaara degmada Ceelifeyn, gaar ahaan ku ciyaara garoonka Nugaal Stadium. waxaanu halkan cambaarayn u diraynaa gudoomiyaha degmada Ceelifeyn ee ciyaaraha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelifeyn ee ciyaaraha. waxaanu cambaaraynteedaas ku sababaynaynaa inaan had iyo joorna soo gaarin wixii aan xaq u lahayn ee agab sporti ahaa. gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha fadlan waxaan ku codsanaynaa inay agabkayada si ina yaro maalin dheed waxaa xaq u hela mid asaagayada oo sportiga ka mid ah. marka waxaanu biliis waxaanu ka codsanaynaa inay waxaanu xaq u lahayn noo soo daayaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. anigoo ku hadlaya afka maxay tolay dhalinta sportska ee degmada Ceelifeyn, khaasatan garoonka Nugaal Stadium, waxaan ka hadlayaa maxay ahay tolay inaan wax agab naga soo gaadhin bahda sportska ay ugu horeeyaan gudoomiyaha sportska degmada Ceelifeyn iyo gudoomiye ku-xigeenka bahda sportska degmada Ceelifeyn. waxaan leeyahay agabkii aan u lahayn maxay ahay tolay xaq ma helo, maxay ahay tolay sababo la xiriira aan ilaahay hadda ogeyn. maxay ahay tolay bahda sportska degmada anagu wax khasaare mooy wax faa'iido kuma qabno. khasaarahaas oo ah haddii degmada laga furo maxay ahay tolay liigag iyo wareegyo iyo maxay ahay tolay kaabab, anagu maxay ahay tolay balansidkii uma helo aan xaq u lahayn. waxaanu magaranaysaa dad baa u hela, dad asaagaya baa u hela maxay ahay tolay bahdi baa u xaadira wixii aan anagu magaran xaq u lahayn. marka waxaan halkan ka cabaareynayaa gudoomiyaha sportska degmada Ceelifeyn iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada sportska Ceelifeyn. bismillaahir rahmaanir rahiim. أنا مقعد عبد الكريم دانيال كان سندلير دقمة Ceelifeyn كنا دانت بري قرون كا نقال استاديو أغلب كسبورتي وسهر تسوي بتوتا هوايرات من مسوق قف سوق هوايرات تقف سوق واحد سوق على ميشتو وحنا قدامي دقمة ده نقال استاديو هتيك من تاع Ceelifeyn تعال كسبورتها لقاهره حتى أنا كم هاي ندي النوشة ورعد نوشة. بسم الله الرحمن الرحيم. هدام نهاي بهذا دقمة Ceelifeyn سبورتيغا waxaan ku cambaarayna halkan ama ka dhaliilaynaa gudoomiyaha degmada Ceelifeyn Sportiga ninka la yiraahdo maxaa sahal ninkan de ama xilka laga qaado ama shacabka caadi ugu shaqeeyo. waxaan u sheegaynaa in sahal inuu kabaha iyo kubadda uu bixiyo aan ahayn dawlad isugu manaya booska raxiim. maanta halkan waxaan kaga hadlayaa haddaan nahay qolada sportska degmada Ceelifeyn ka ciyaarta garoonka Nugaal. waxaan leenahay qolada wasaaradda maxaan ku raadayay sportsku de wax agaba nama soo gaarsiiyaan, maxaan ku namana daryeelaan haddaan nahay qolada daanta garoonka Nugaal ka ciyaarta. waxaan leenahay markaa de annaga cidna nama maqna ceelna ma qodne. waxaan leenahay bal sidaa hana laga warhayo de aan la soo gaarsiiyo sportska daanta degmadan garoonka Nugaal. bismillaahir rahmaanir rahiim. anigoo magacaygu yahay Saciid Axmed Diiriye, halkan aan maanta joognaa waxa weeyaan garoonka Nugaal Stadium. waxaanu dhaleecayn dusha uga tuuraynaa maamulka sportska degmada Ceelifeyn, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. waxaanu leenahay inaanay wax agabna soo gaarsiin agab sportis ah iyo wax koob oo lagu qabtay, hadday tahay koob Ramadaan iyo hadday tahay koob kaleba oo liigaga inaan laga furin garoonka Nugaal Stadium. halka dhigayaga garoomada kale ay helaan agabka sportiska iyo liigaga. marka waxaanu leenahay wasaaradda maxay ciyaaraha iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelifeyn ee wasaaradda ciyaaraha inay arrinkaas si degdeg ah wax uga qabtaan. wax kubada iyo wax kaba iyo wax garamaana iyo wax haba yaraatee na soo gaadhaa ma jirto. marka waxaan leenahay wasiirka sportiga waxaan leenahay waxaan u baahanahay agab baan u baahanahay, kabaan u baahanahay, waxaan u baahanahay garoomo xataa waa loo dhisaa. marka waxaan u baahanahay agab badan baan u baahanahay. leeyahay haddaan garoonka Nugaal Ceelifeyn ka mid ahayn wax caadi anaga naloo sheego. haddaan dhalinyarada degmada Ceelifeyn ee sportska waxaan u baahanahay de anagu xaqeega helno. عبد الرشاد محمد دقمة Ceelifeyn gobolka Sanaag.